السلام عليكم أصحابتي وين سلامي سلامك بعدي واكينج ديرسي official markaas soo laabtay asxaabta waxay idin kala nageynaa maalmahan ka mashquulsanaa oo hawada aan ka maqnaa kastoo xoolo yar ay yihiin xoolahaas dadkooda la mashquulsanaa aad iyo aad aan kala nageynaynaa caawa laba barnaamij oo gaaban rabaa inaan soo dhigo mid ugu horeysa waxaan rabaa inaan ka hadlo xaaladaha ku saabsan gobolka Boqol gaar ahaan degmada Xudur cabashooyin badan jiro dadkana aysan arkeynin dhinaca loo kala jeedo ma aqaano magaaladii Olgoroba muddo 15 sano iska go'doonsaneed diyaarad wax lagu keenayay ayaa hadda waxaa la sheegaa muddo 2 bilood ama bil iyo barba aan diyaarad imaaninba roobkan si u bilowdeen diyaarad imaan shacabkii meesha ku lugan yihiin ganacsatadii raashinkii cuntadii qaali ay noqdeen inkastoo maalin hore la dhahay elboorka dib loo dayactirayo elboor haddii in la xaaqo ama car lagu soo dayactir ma noqonayso dayactirka rasmiga ah waxaa loo baahan yahay in elboor laami la saaro jaay la saaro adag raanweygiisa la sameeyo waa isha kaliya magaalada ay lahayd faa'iido badan ugu jirtay maamulka iyo dowladda koonfur galbeed iyo xataa federaalka waayo elboor ma haduu dhisan yahay gobolkaasna canshuura soo gelayso faa'iido laga helaa laakiin elboor markuu roob imaado sida wadooyinka camal dhiiqada gawaarida aan mari karin camal taasna aad iyo aad faa'iido ugu tahay taasoo maamulkiina aanan ka hadlaynin dhibaatooyinka magaalada ka dhacay fatahaadadii iyo shacabkii meesha ku dhibaataysanaa barakacayaashii magaalada oo barakacayaal aad iyo aad laba degmo iyo macal tuulooyinkeeda kusoo barakaceen oo argagixisada kasoo ordeen al-shabaab magaaladii cunto la'aanta iska jirto hay'ado oo fiican oo dee budget fiican la haysanin iska jooga caagada biyo lagu shubto meesha iskaga bixinayo run ahaantii waxay qaab daro u tahay maaragtay maamulka koonfur galbeed asagoo la sheegay inuu bishan December inuu imaado magaalada Xudur waqtigiisa November ku ekeed waxa waaye waa damir xumo in adigoo meesha sharci daro ku joogay lusku haystay shacabkii aanan dee ku kala qaybsanayeen haddana markay dhibaatada ku jireen oo dowladoodii iyo maamulkooda u baahnaayeen maaragtay aysan xataa ka warqabin magaalada ay joogeen oo caasimadda magaalka Beledweyne aheedaba waxa waaye waxba loo qabaneen Xudur oo deetaala marka dhibaatooyinkaas magaaladaas haysata kaliya magaaladaas ma haysatee dadka ku nool ee reer koonfur galbeed gaar ahaan reer Boqol reer Xudur ku dibadaha jooga dalka jooga intaba waxa waaye isku mid yihiin marka dadka wax haysto oo ganacsatada ah maalin warsa airportkaas oo dhisteen haddan u dayactirta meesha dawladdu waxay qabanayso uma jeedno sidoo sheegay Cali Kareero waxa waaye wasiir imaana Abdullah 500 diyaarad 5 mar imaana diyaarad laakiin shacab hadii loo diyaarad loo ma hay shacabkii lacagtooda diyaar leh wax walba diyaar u yihiin haddan leeyahay maaragtay miidin imaan kan marka qabadooyinkaas inay meel dheer gaaraan aan filayaa reer Boqol in isku maaragtay isku dubnaadaan insha Allah maalinna waxay dhici doontaa in magaalada Xudur isku soo tartami doono dhalinyarada iyo maamulka degmada iyagana mas'uuliyadda ay ka saaran codkiina dheereeya dadkan iska imaanayo oo de madaxda ahana runta u sheega barnaamijkaas gaaban magaaladaas aad iyo aad maaragtay arinteedu adag tahay waxaan leeyahay il gaar ah lagu soo fiiriyo meesha dawladda waxa ma jeedna laakiin shacabka iyo ganacsatada dibadda iyo dalka daafiis kala joogaan soo fiiriyaan barnaamijkan gaaban intaas oo ahaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.